الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كلمة ديدا waxaan rabaa inaan ku biiriyo kalimaad badan culimo badan ay ka yiraahdeen dhacdadii ka dhacday magaalada Hargeysa, musiibadii weyneed ee suuqa weyn ka dhacday oo dad aad iyo aad u fara badan ay ku hanti beeleen. waxaan leeyahay dadkii musiibadaasi ay ku dhacday marka koobaad ilaahay subxaanahu wa ta'ala badal khayr qaba oo degdega oo aan daahin ilaahay haydisiiyo. reer Hargeysa waxaa ku dhacay dhacdo aan hore u soo marin, intaas oo ummad ah ayaa ku hanti beeshay, bilaayiin lacag ah ayaa hantidoodii ay tahay ku gubatay. walaalayaal, marka waa imtixaanka la marahay ka mid tahay. ilaahayna quraanka inoogu sheegay kariimka ah in naftii la waayahayo, hantidii ay baaba'ayso, beerihii iyo maxaasiisha ay baaba'ahayaan, intaasna ay tahay in qofka lagu imtixaanayo. inaad marka tiraahdaan ilaahay baa qadaray, qadara Allahu wama sha'a facal, inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. ilaahu musiibadan bedelkeeda khayr la igu bedel mid ka khayr badan oo ka wanaagsan, inaad tiraahdaan ayaa la idinka doonayaa dhammaan dadkii dhibaatadaasi ay ku dhacday. hantidan gubatay ilaahay baa subxaanahu wa ta'ala idin siiyey, bedelkeeda iyo ka badanna ilaahay baa haysta subxaanahu wa ta'ala oo khazaa'intiisu ay buuxdaa. ilaahay subxaanahu wa ta'ala biasmaa'ihi wa sifaatihi waxaan ku weydiisanahayaa oo ku baryahayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadkii halkaas musiibadu ay ku dhacday reer Hargeysa oo weliba xilli abaar ay jirtay oo xaaladdu cuslayd ay ku timid, ilaahay bedel degdega oo khayr badan oo ka khayr badan ilaahay inuu ugu bedelo. arrinka labaad oo muhiimka waxa weeyaan muslimiintu meel walba ay joogaan waa kaliyadil waahid, waa hal gacan, waa kal jasadil waahid. nabigu waa ka inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam in dadka loo gurmado oo waxa weeyaan aan looga bakhiilin wax alla wixii loo awoodo ilaahay subxaanahu wa ta'ala dartiis loo caawiyo. maxaa yeelay ilaahay wuxuu inoogu gargaarayaa oo inagu arsaaqahayaa daqnashada aan u daqnanayno iyo naxariisashada aan u naxariisanayno dadka ducafada ah. dadkii shalay malaayiinta haysta waxaa laga yaabaa caawa $1 inayna haysanin, hantidoodii dhammaan ay halkaas ku baaba'day, ku gubatay. marka walaalayaal, dadka ilaahay uu waxsiiyey dalka iyo dibadda meel kastoo ay joogaanba, ilaahay dartiis dadkaas loo caawiyo oo hala garab istaago, qof walba daaqadiisa iyo awoodiisa. nabigu waa ka yidhi sallallahu alayhi wasallam, wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih. intaad u kaalmaynaysaan dadka walaalihiin ah meel kastoo ay joogaan baa ilaahay idiin kaalmaynayaa. waa arrin muhima inaad ogaataan. xoolihiinana idinka naaqusi mayaan. maa naqasat sadaqatun min maal, sadaqa la bixiya maal ma nuqsaamiso. nebi maxamed baa yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalam. ilaahayna subxaanahu wa ta'ala bedel khayr qaba oo degdega allaha siiyo. wasala allahuma calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin.